xerada inji ee magaalada Dhuusamareeb oo ay ku dagaalameen ciidanka Ahlusunna wal Jamaaca ayna ku jireen madaxda sarsare ee Ahlusunna wal Jamaaca ayaa gashay gacanta ciidanka dawladda Soomaaliya kadib dagaal 7 saacadood qaatay. Dagaalkan waxa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Saraakiil iyo askar ka tirsan qaybta 21aad ee ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa hogaamiyaasha Ahlusunna wal Jamaaca kula kulmay qaybta ay deegaansanayeen inji iyadoona nabadgelyadooda lagu wareejiyay Mas'uud Maxamed Warsame taliyaha guutada 15aad qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka. Hogaamiyaasha Ahlusunna wal Jamaaca Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir Maxamed Cali Xasan ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb iyagoona sheegay in ay ka tanaasuleen dagaalkii in uu sii socdo isla markaasina hubkoodii ay ku wareejiyeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya. waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansanay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalino. taas daraadeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeena markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay waliba ka sii badan ayaa waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay. marka bulshadeena waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba. haddana horana dawladda federaalka Soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay. haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dawladda federaalka Soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmudug laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka laga ilaaliyo argagixisada la rabaa. mas'uuliyadaas waxaan rabnaa dawladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa. waxa weeye mar rabnaa annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni maalanba barbagaando iyo wax kaleeto. mas'uuliyadaas dawladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay ka bacdina waxa weeye ayada waxa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida ayada laga rabaa. waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeena sharafta leh qiimaha badan leh daraadiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas'uuliyiintii haddana Ahlusunna wal Jamaaca mas'uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay. waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo. waxaan bistoosnay oo garanay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadano inaysan noqon ee aan ogolaano oo aan niraahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan. in badanna waa ku dhawaaqnay markii aan aragnay inaysan shaqaynayn oo dagaal iyo layn dadkii la laynayo ay soo baxday. intii aan qayb ka noqon lahayn waxaan nidhi qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah. waxaan rabnaa marka in aan caddayno halkaan ka caddayno Ahlusunna wal Jamaaca wax laga tanaasuli karo ma ahan waa caqiidada dhan oo islaamka lagamana tanaasuli karo laakiin wax alla wixii kale oo dhan waa laga tanaasuli karaa. marka waxaan jeclaysanay dhibka markaa ummaddu ku jirto bal in si looga baxo in la helo. maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale weeye. oogadaadu sida ay kuu xanuujinayso ayaa qofka mu'minka ah oo walaalka ahina kuu xanuujinaya. ilaa hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo la xiriiro dagaalka ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlusunna wal Jamaaca ku dhaxmaray magaalada Dhuusamareeb.